Cudurka diabetic mellitus-ka Soomaaliduna ay u taqaan magacyo dhowr balse iska yara agdhow sida sokor, sokorow, macaan, kuwaasoo dhammaantood tilmaamaya inuu jiro cudur la xiriira sokor ayaa maanta ka hadlaynaa. Cudurka macaanka ama sokorowga waa cudur khatar ah oo ka mid ah cudurrada waqti dheer jira ee lala noolaado, isla mar ahaantaana badanaa ku dhaco dadka da'da ah, inkastoo mararka qaarkood ay ku dhacdo dad yar da' ahaan. Cudurka sokorta si qofka loo dhaho cudurkan ayaad qabtaa, waxaa loo baahan yahay in xirfadle caafimaad iyo goob caafimaad ay go'aankaasi ka soo baxo. Haddii aysan intaas dhicinna, qofkaas weli lama dhihi karo sokor ayuu qabaa. Waxyaalaha keenaya in sokorta dhiigga ay kacdo oo qofkan la dhaho sokor ayaa qabtaa waa kala duwanaan karaan, waxyaalo kala duwan waaye. Waxyaalahaas waxay ka siman yihiin inay kulligood keenaan sokorta dhiigga ku jirta oo zaa'id ah. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa muxuu yahay cudurka sokorta ama macaanka Soomaalida u taqaano, maxaa keena, sidee loola noolaadaa, iyo haddii qofku uusan raadsan daaweyn iyo la tacaalid caafimaad muxuu ka dhaxli karaa. Sida caadiga ah, cunooyinka uu aadanaha cuno waxaa ugu waaweyn 3 shay oo tamar aan ka helno. 3daas shay waxaa waaye borotiinada, faatiska iyo carbohydrateska. Waxay u kala weyn yihiin oo u kala muhiimsan yihiin sidaan u kala dambeysiiyo. Macnaha waxaa ugu dambeeya carbohydrate, waa sourciga amaba isha ugu weyn oo energy aan haysano, kadibna faatiska, kadibna borotiinska. Laakiin 3daba jirka ma ka maarmaayo, waxayna 3daba muhiim u yihiin in shaqooyinka jirka iyo qaab dhismeedkiisa la joogteeyo si caafimaad ah. Borotiiniska markaan qaadano iyagoo laba isugu dhagan iyo 3 amino acid yaa jirka uu nuugaa, waxaana loo adeegsadaa sida asalka ah in murqaha laga dhiso, in loo adeegsado amino acidska ku jiraan borotiino kale in laga sameeyo iyo waxyaalo lamid ah. Si haddii tamartooda loo baahdana waa la isticmaali karaa, tusaale markii starvation la galo iyo markii laga faa'iideysan kari waayo carbohydrate. Faatiskuna iyagana sidoo kaleeto waxay yimaadaan iyagoo triglycerides ah oo hal glycerol iyo 2 fatty acids qaab noocaas isugu dhagan. Markay yimaadaan jirka waa uu nuugaa, iyaga waddo gooniyaha la marsiiyaa oo lymphatics-ka ka mid ah, kadib baa dhiigga lagu daraa iyagoo la qaadaya maadaama ay fat yihiin oo aysan dhiigga ku socon karin. Kan u dambeeya waa carbohydrates. Carbohydrates waa cuntada ugu weyn ee energy aan ka helno, waa cuntada ugu badan ee aan cunno, ee bariiska, baastada, wax kastoo hadda cunno ah aan cunno, waxa ugu weyn oo ay ka samaysan tahay carbohydrate. Carbohydrate-kaas marka jirkeena uu qaadanayo by simple means u qaataa, iyagoo complex ma qaadan karo. Marka simple aan ku dhahayo waxaan ka wadaa iyagoo hal xabo ah, monosaccharides waxa la dhaho. Marka sokortaas oo monosaccharideka midda ugu caansan ee ugu badan yaa waxay tahay midda la dhaho glucose. Sokor kale jiro oo jirkeenu nuugi karo kana faa'iideysan karo sida galactose oo kale, fructose oo kale. Adiga sokoro badan oo jirka ka faa'iideysan kara, laakiin tan oo major-ka ah oo ugu muhiimsan waa sokorta loo yaqaano glucose. Glucose-taas markii mindhicirada ay nuugaan, dhiigga lagu daro, blood glucose level-ka wuu sabaynayaa, kor u kacayaa. Markuu kor aado, unugyada jirka waxay u baahan yihiin sokortaas inay dhiigga kala baxaan. Markay dhiigga kala baxaan ay gubaan, energy ay kasoo saartaan, energy-gaasna ay u isticmaalaan shaqooyinkooda caadiga ah. Marka si ay taas u dhacdo waxay u baahan yihiin fure. Sokorta dhiigga ku jirta iskama soo qaadan karaan. Sokorta waxay u baahan tahay unugu meel ay kasoo gasho, albaab yar ay kasoo gashaa jira. Albaabkaasna wuxuu u baahan yahay fure. Furahaas loo baahan yahay waa dheecaan loo yaqaano insulin. Dheecaankaas insulinka la dhaho waxaa soo deeyo unug, waxaan ka wadaa waxaa soo deeyo organ amaba xubin Soomaalida u taqaano ganac, afka cilmigana lagu yiraahdo pancreas. Qaybtiisa endocrine-ka ah unugga ku yaalo oo la dhaho beta cells. Marka insulintaas markii la soo daayo way soo baxeeda, unugyada fureeda, khaasatanna unugyo waxaa jiro ku xiran oo la'aanteed aananba sokorta qaadi karin. Unugyadaas waa unugyada leh waxa loo yaqaano GLUT4-ka oo nooc transporter-ka sokoraha xareeya ka mid ah. Waxaana leh si qaasa unugyada skeletal muscles-ka iyo unugyada adipose tissue-ga ama si kala dilado unugyada murqaha iyo unugyada oo baruurta. Marka sidaas waa sida dabiiciga ee jirkeenu uu sokorta u qaato. Maxaa ka qaldan marka dadka sokorta qabo? Dadka sokorta qabo waxaa ka qaldan waxaan u shaqaynaynin ama
wax ka qaldan yihiin dheecaanka insuliinka soo deyntiisa iyo intii laga rabay, ama waxay wax ka qaldan yihiin meeshii uu la falgali lahaa oo uusan la falgali karin. Labadaas mid ayaa jirto. Marka labada mid midna waxay ku xoogan tahay dadka qaba nooca koowaad ee sokorta type 1 diabetic mellitus, midna waxay ku xoogan tahay dadka qaba nooca labaad ee sokorta type 2 diabetic mellitus. Dadka qabo type 1ka waa dadka ay ku yar tahay ama aanan bahaysan insulin. Sidaas darteed qofka hadduu type 1 qabo arki doona in the management qofkaas waxaa la siiyaa insulin. Dadka oo maxaa la dhahaa qabo diabetic mellitus type 1ka waxaaba la dhahaabo insulin dependent diabetic mellitus, amaba diabeticada ama sokorowga ku xiran ama markasta ku tiirsan insulinta. Marka dadkan sokorta qabo waxaa ka hadlaysan insulinta iyo falgalki meesha furaha aan ku sheegnay insulinta meesha ay gali lahayd oo ay furi lahayd aan wax ka qaldan yihiin ama iyada wax ka qaldan yihiin. Marka haddii labadaas midood jirto waxaa imaanaya in sokorta imaado. Dadka sokorta qabo marka waxaa dhacaya marka maadaama ay ka buuxdo sokorta dhiigga jirkiina uusan ka faa'iideysan karin, waxaa dhacaydo kow sokortu waxay la falgalaydaa waxyaalaha kale ee dhiigga kula jiro sida borotiiniska oo kaleeto oo ay ku sameynayso glycosylation amaba ay sokoreynayso sokora ku dhagayso borotiinada qaarkood. Kan ugu caansan ee ugu muhiimsanna waa borotiin ku jiro unugyada cascas amaba red blood cells oo loo yaqaano hemoglobin. Borotiinkaasoo markay ku dhagto waqti dheer ay haysan karto, taasoo baaritaan ahaan faa'iido noqotay in dadka sokorta qabo marka la rabo in la baaro inay waqti dheer jirkooda sokortu kacsaneyd iyo in kale, waxaa loo diraa baaritaan la xiriiro hemoglobinkaas oo la yiraahdo hemoglobin A1C la dhaho ama HbA1c. Marka waxaa muhiim ah marka meeshaas la maraa in hoosta laga xariiqo. Markii sokortan jirka uu ka faa'iideysan waayo waxaa qasaba in jirka laga saaro. Waxaa qasab jirka laga saaro markaan dhahay waxaan ka wadaa sokortu markay baxdo dhiiggay la socotaa, waxay tagaysaa meelaha dhiigga lagu safeeyo. Jirkeena laba xubin uu leeyahay oo dhiigga safeeyo. Xubin waa kelida, xubin waa sambabka. Sambabka asiga jirka wuxuu ka nadiifiyaa waxyaalo kooban. Waxyaalahaas waxaa ka mid ah carbon dioxide. Markii la sameynayo circulationka qayb ka mid ah yaa dhiigga waxaa la geeyaa sambabka. Sambabka wuxuu ka nadiifiyaa carbon dioxide-ka, oxygen-ta oo lasoo neefsaday yaa lagu soo geliyaa, asoo oxygenated blood ah yaa lagu soo celiyaa wadnaha si jirka intiisa kaleeto loogu bambi gareeyo. Laakiin kelida waxay ka nadiifisaa waxyaalaha kale ee soo haray oo waste products ee jirka soo saara, hadday ammonia tahay, hadday urea tahay, hadday creatinine tahay, hadday tahay maxaa la dhahaa daawooyinka oo jirka uusan markii uu isticmaalo kadib metabolize gareyn karin amaba uusan other means kale ku saari karin. Waxaasoo dhan kelida qabato. Marka kelida waxay leedahay meel yar oo filtration ay ku sameyso shabaq yar. Shabaqaas yarka waxay sameysaa marka dhiigga uu soo marayaa glomerulus filtration la dhahaa. Filtrationkaas marka wuxuu sameynaa wixii wasakh ah oo saaraa dhiigga intiisa kale oo gudbinaa jirka ku celinaa. Marka maadaama sokortan ay jirka ka badatay markay timaado filtrationka wuxuu isku dayayaa inuu sokortan uusan saarin xaddi waxaa jirta uusan awoodin hadday sokorta gaarto inuu saarto. Tusaale ahaan buugaagta inta badan waxay qoraan haddii sokorta ay gaarto 180 milligram per deciliter wixii ka badan in kelida ay dhibaateynayso oo waxay u dhibaateynaysaa kelida waxay isku dayaydaa inay filtrationkeeda oo aad u yar in aysan sokorta ka gudbin. Sokortiisa way badatay cadaadis ay saaraysaa. Marka maxaa imaanaya in sokortii ay ka gudubto filtrationkan kadibna ay kaadida raacdo. Markay kaadida raacdo kaliya kaadida inay raacdo kuma ekaanayso laakiin maadaama ay solute tahay waxay jiidanaysaa biyo fara badan. Sidaas darteed qofka maxaa lagu arkaa calaamadaha ugu horeeya qofka markuu sokorta qabo isku arkaya maxaa waaye kaadi badan. Qofka wuxuu dhahaa maanta dhan kaadi badan ahayd kaadi badan. Kaadida badan waxaa keenaya sokortan kelida ka baxeeda yaa biyo fara badan jiidanaysa. Sidaas darteed qofka kaadidiisa sokora ka buuxdo. Markuu meel bannaan ku kaadiyo oo kaleeto waxaa la arkayaa kaadidiisii oo quraanshada iyo waxyaalo lamid ah oo macaanka jecel ay kusoo ururayaan. Waa sokor ayaa ku jirto. Marka qofku wuxuu yeelanayaa handhaane kow
polyuria wax la dhaho oo ah in kaadi fara badan ay ka timaado. Okay, marka qofka biyo fara badan jirkiisa ka baxay maxaa kugu soo dhacaya adiga inaa oon imaanayo, qofka haddana wuxuu yeelanayaa oon, wuxuu yeelanayaa wax loo yaqaano bullidipsiga. Bullidipsiga waxaa waaye qofka oon fara badan oo dareemaya. Dhanka kale waxaan dhahnay unugyadii ma ka faa'iideysan karaan sokorta dhiigga ka buuxda, maadaama aysan sokorta dhiigga ka buuxda ka faa'iideysan karin waxaa jirta baahi tamareed. Maadaama ay jirto waxaa laga shaqaysiinaa hormoonska qofkan baahida ku keeno. Waxaa jirto dheecaano oo baahida la xiriira iyo dheecaano dheregta la xiriira. Markay kacaan dheecaanada oo qofka inuu baahan yahay muujinayo, qofka wuxuu yeelanayaa baahi zaa'id ah. Saas darteed qofka cunto fara badan oo cunaa asagoo dhiiggiisa sokor ka buuxdo haddana weli waa baahan yahay. Marka waxaa loo yaqaanaa polophagia. Polophagiada maxaa maanta dhan qofkan wax cunuu rabaa, wax cunitaan fara badana lagu arkaya. Waxaa kaleeto lagu arkayaa maadaama qofkan uusan jirkiisa ka faa'iideysanaynin sokorta dhiigga ka buuxda, kaadi badan ka baxeedo oo jirkiisa inuu qof dehydrated noqdo oo qalalo na waa lagu arkaya. Qofka markii goob caafimaad la geeyo la rabo in la ogaado qofkan sokor ma qabaa ama sokor ma qabo, xirfadlayaasha caafimaad waxay sameynayaan qofka baaritaano oo aanan waaweyneyn balse macno ku fadhiyo oo ay qofka ku sameeyaan jirto. Baaritaanadaas waxaa ka mid ah wax loo yaqaano fasting blood sugar. Fasting blood sugarku wax kale maahan, dhakhtarku wuxuu ku dhahayaa habeenka waxba ha cunin, subax imaan rabta habeenkeeda waxba ha soo cunin, adoo habeenkii aanan casheynin seexo, subaxdii imo. Markaad timaado waa baahan tahay adiga xalay wax maada cunin, marka waxaa laga cabirayaa sokortiyaa laga cabirayaa. Sida caadiga ah marka waxaa la rabaa in 99 milligram per deciliter ama 99 inaysan ka badnayn sokortaada. Haddii ay 100 ilaa 125 ranjigaas u dhexeeyo sokortaada, waxaa khatar ugu jirtaa inay sokor kugu dhacdo, laakiin ma qabtid sokor. Haddiise sokortaada marka adoo baahan oo xalay waxba cunin la cabiro subaxii ay ka badato 126 ama ay la ekaato xataa, qofkaas waxaa la dhahayaa sokor oo qabaa. Kaas kaliya laguma simanayo, waxaa jirto qaabab kale oo iyadana uu dhakhtarka u cabiri karo. Tusaale ahaan waxaa jirto hanaan kale oo la dhaho glucose tolerance test oo la cabirayo jirkaaga la qabsiga ama dulqaadka uu leeyahay sokorta uu leeyahay. oo maxaa la sameynaya sidii hore kaleeto waxaa lagu dhahayaa habeenkaas soo casheyna subaxda imo, kliniga subaxda tageeda adoo habeenka aadan casheynin, sokortiyaa laga cabiraya. Marka laga cabiro waxaa lagu siinayaa biyo sokoreysan. Marka biyo sokoreysan lagu siiyo saacad kadib, 2 saac kadib, 3 saac kadib waxaa laga cabiraa sokortaada. Marka 2 saac ay kasoo wareegato xilliga lagu siiyey biyihii sokorta lahaa yaa la cabiraya. Waxaana la rabaa marka in aysan sokortaadu ka badanin 140. 140 hadday tahay sokortaada waa normal. Haddiise ay u dhexeedo 140 ilaa 199 waxaan dhahaynaa qofkaani wuxuu halis ugu jiraa inuu sokor ku dhacdo. Haddii ka waran ay 200 oo milligram per deciliter gaarto ama wax ka badan, soo qofkan xalay baahnaa saakana biyo sokor la siiyo, macnaheedu wuxuu qabaan dhahaynaa qofkaas sokor. Waxaa jirto mid oo random blood sugar test la dhaho, maadaama adiga markaad hore ka tagtid baa u baahan tahay in dhakhtarkii uu baaritaan kugu sameeyo oo in habeen kale adoo baahan beri iisoo laabo lagu dhaho intaan la gaarin kahor qofka uu walwalsan yahay. Waxaa la sameeyaa random blood sugar test oo ah qofka xilligoo doona iska yimaado subax galab duhur whatever, mar allaale markuu yimaado wax ma soo cunto ma soo cunin ma la fiirinayo, qofka si randomly ah yaa looga cabirayaa sokorta. Markaasna waxaa la rabaa in aysan sokortu 200 iyadana ka badan. Haddii 200 ay ka badan tahay, markaas qofkaasna waxaa looga shakinaa inuu diabetic mellitus qabo. Waxaa jirto mid intaasoo dhan ka yara horumarsan, qaybtii horena hadal la xiriir aan soo yara taabanay, kaasoo ah waxa loo yaqaano HbA1c-ga oo ah testi oo aan dhihi karno waa very accurate. Inta badan dadka sokorta qaba ee daawooyinka qaadanayo ama maxaa la dhahaa in lala socdo la rabo, iyo dadka la rabo inta sokorta baaritaanada hadda aan soo sheegnay lagu soo sameeyey la arkay inay sokor qabaan yaa loo diraa. Marka asiga percentage lagu cabiraa, sida kuwa horeeta ma lagu cabiro miqyaasaadka aan soo sheegnay. Marka qofka loo diro HbA1c testiga
qofka caadiga waxaa laga rabaa 5.7%. qofka haddii ay intaas ka badato laakiin aysan dhaafin 6.4%, weli qataroo sokorta ugu jira ayaa unbaa la dhahaya, laakiin sokor ma qabo. haddiise 6.5 ay ka badato ama 6.5 ay noqoto, macnaheedu waxaa waaye qofkaas sokor ayuu qabaa. taas waxaa waaye baaritaanada. waxa muhiimka ah waxay tahay in uu qofka ogaado marka qofka la dhaho sokoraa qabtaa oo dhakhtar ama xirfadle caafimaad kaleeto oo u xaqiijiyo qofka inuu sokor qabo, waa lala talinaya. waxaa la dhahayaa waxaa sameysaa cunooyinkaas iyo cunooyinkaas ka dheerow, waxaa qaadataa daawadaas, waxaa la socotaa sokortaada. marka qofka in uu aqbalo oo waxaas la socdo dan weyna ugu jirto. waayo ka waran haddii qofka la dhaho sokoraa qabtaa isla mar ahaantaana uusan cunooyinka oo khatarta ku ah sokorta uusan ka fogaanin, wax daawo ahna qaadanin. haddii isaas dhacdo maxaa dhacaya? marka taasaan rabnaa inaan hadda ka jawaabno. sidaan data aan soo sheegnay, horta kow, sokorta dhiigga waa ka buuxdaa laakiin jirka ma oga. jirka marka haddii uusan ogeyn, jirka wuxuu isku dayayaa si uu usii noolaado in uu ka faa'iideysto kaydka uu haysto. kaydka uu haysto waxaa ugu weyn sokor beerka lagu kaydiyo iyo murqaha oo loo yaqaano glycogen, laakiin wax badan lama isticmaali karo. marka maalin la isticmaalo kadib waa yaraanaysaa sokortaas kaydka. kadib waxaa loo baahnaanayaa in source kale la isticmaalo. isla markii waxaa la isku dayayaa wax loo yaqaano gluconeogenesis, oo ah in sokor la samaysto. processkaas laftiisana 4 maalin ma dhaafi karo. wixii ka dambeeyo waxaa loo baahnaanaya in fatis la jajabiyo. fatiskaas marka la jajabinayana waxaa laga soo saaraya particles loo yaqaano ketones. ketoniskaasoo 3 xabaa mid kamida oo la dhaho acetone iyo asoo neef ah neefta soo raaca. saas darteed qofka sokorta qaba in sokortiisa controlnayn, waxyaalaha aad ku fahmi kartid waxaa kamid a neeftiisa waxay usoo carfaysaa sida qudrad camal, tufaax oo kaleeto camal usoo carfaysaa. markaa qol soo gashid qof sokor qaba jiifo oo sokortiisa isan control, waxaa kuusoo uraya isla markii wax oo qudaar ama tufaax camal kusoo uraya. marka waxa keenaya maxaa waaye? waxaa keenaya jirkii yaa wuxuu ka faa'iideysan layahay sokortii oo dhiigga ka buuxday. wuxuu isku dayayaa si uu u survive garoobo in uu fatiska gubo. gubitaanka fatiskaasna waxaa ka imaanaya particleskaas aan ku sheegnay, ketones aa la dhahaa, oo iyaga laftooda jirka uu ka faa'iideysto. mushkiladda labaad oo qofka inuu fahmo loo baahan yahay waxay tahay, waxaa jiro unugyo jirkeena ka mid ah oo aanan isticmaali karin source of energy aanan ahayn sokor. unugyadaas weliba waxaa kamid a kuwa jirkeena ugu muhiimsan, sida unugyada maskaxda oo kale. unugyada maskaxda ma yaqaanaan mana isticmaali karaan fatka. saa darteed markasta waxaa qasaba in sokor la helo. marka beerka oo mas-uulka ah in jirka la gaarsiiyo sokorta, ilaan murquhu waa iska tabar yar yihiin. murquhu waxooda iyagaa furfurto oo isla iyagaa isticmaalo, oo sokorta u kaydsan markii la furfuro ma gaarsiin karaan heer ay noqoto glucose. oo unugyadaas waxaa ka maqan enzymyo muhiim u ah in sokorta phosphate group ku dhegan ay ka fujiyaan. marka ma heli karaan, iyaga le waxooda isticmaal. laakiin beerka waa xubinka ugu weyn jirka markay timaado in sokorta la controlo. marka jirka iyo baahidiisa uu ka warhaya beerka. marka beerka markasta wuxuu ku dadaalaya in maskaxda ay hesho sokor ku filan. haddiise waqti dheer ay waxaan jiraan, ma awoodi karo markasto in uu u bacdhigo cid aan sokortooda controlnayn. dhanka kale waxaa imaanayo quality of lifeka qofka yaa hoos u dhacay. sokortu waa mid kamida waxyaalaha quality of lifeka qofka meel xun gaarsiiya ka hor dhimashada. waa aragtay dadka sokorta qabo qaarkood waxay ku waayaan xubnaha jirkooda. waxaa lagu sameeyaa ama lug ama gacan ama bari ama meelaa laga jaraya. waxa keenayo in qofka qayb xubnaha jirkiisa kamid ah la jaro waa un sokortii oo aan controlnayn. se u keenaysaa marka haddaad sidaan soo sheegno, sokorta markay dhiigga ka buuxdo waxay ku dhegi kartaa brotiinada oo dhiigga dhexyaacayo, iyada lafteeda iska qabsanayso oo macromolecule sameynayso. waxaas oo idil maxay keenayan? waxaa ka dhalanayo in xididada yaryar ee xiraan. xididadu waa kala dhumic weyn yihiin. xididada dhumicdooda ee yar tahay ee yaryar iyo xiraya. haddii ay xididka xiraan, meeshaas wixii ka dambeeyo dhiigga ma gaarayo. hadduusan dhiigga gaarin, meeshii waxaa ku imaanaya
inay dhimato oo gangrena samaysmayso. Marka qofki waxaa la arkayaa qofki suulaa madoobaaday, faraa madoobaatay, waxaasaa maqlaysaa. Maxaa keenaya in qofkan marka qaybtaas ay madow noqoto oo waa la jarayaa ay dhakhaatiirtu dhahaan? Waxaa keenaya meesha way dhimatay. Maxaa dhimashadana keenayo? Sokortii ay waxay xirtay xididka. Kaliya intaas kuma simanayso. Sokorta indhahay ridaysaa oo cataractiska dadka ku dhaca ama xuubka isha saaran iyadaa keenaysa. Waxay dishaa kelyaha. Waxay keeni kartaa in xididada maskaxda iyo wadnaha ay xirto. Sidoo kale sokorta waxaa ka yimaada cudurka loo yaqaano dhiig karka. Dadka ugu badan sokorta qaba ee aanan sokortooda kontaroolnayn u fiirso iyagoo dhan amaba inta ugu badan waxay qabaan cudurka dhiig karka. Dhiig karkaasna ma ahayn dhiig kar caadi ugu dhacay, waa dhiig kar ka yimaaday sokorta. Siday u keenaysaa? Sokorta waxay keenaysaa inay xididada endotheliumkooda amaba waxyaalaha oo xididka line gareynaya amaba dhexda ka saaran oo ah unugyo yaryar oo muhiim u ah maxaa la dhahaa inay dhaawacaan. Kadibna waxaa ka imaanayso in xididku uu adkaado. Marka xididada markay adkaadaanna cadaadiska dhiigga ayaa kordhaya. Ileen hypertensionku waxa waaye resistance-ka ama cadaadiska ka jira xididka oo bata waaye. Saa daraadeed dadka oo sokorta qabo sababaha ay u dhintaan waxaa ka mid ah coronary artery disease ka mid ah amaba xididada wadnaha quudiyo dhibaatooyinka ku yimaada. Marka overall sokorta haddii qofku uusan iska daaweyn wuxuu ku weyn karaa xubnaha jirkiisa qayb ka mid ah. Waxay ka ridaysaa indhaha, waxay dhibaateynaysaa kelyaha, maxaa la dhahaa waxay wax gaarsiin kartaa maskaxda iyo wadnaha. Waxaa ka imaan karo cudurrada faaliga la dhaho amaba stroke oo qofka ku dhufan kara. Sidaas daraadeed waxaa marka qasaba qofka inuu qaato talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtu siinayaan. Qofka markuu sokor qabo cunooyinka dhakhaatiirta waa ka saxan. Waxaa jira dhakhaatiir oo nutritionistyaal ah oo nafaqada ku takhasusay oo si qaas ah dadka diabetic ama sokorta qabo ula taliyo oo isbitaalada qaar laga heli karo. Marka qofku waxaa lagala talinayaa nooc cunto uu qaadanayo, xilliga uu wax cunayo, daawooyinka uu qaadanayo. Marka haddii uu intaas raaco waxaa la arkaa in sokortiisa ay kontaroolan tahay. Haddii sokortaada ay kontaroolan tahay oo markasta aad cabireedid oo aad ka warhaysid dhibaatooyinka aan ka sheekeynayno qofku waa uu ka badbaadayaa mana la kulmayo. Marka intaasaan soo koobaynaa qaybtan hadda aan uga hadlaynay. Waxaa jirta qayb dambe oo tan ku lamaanan oo aan uga hadli doono waxa loo yaqaano insulin resistance-ka oo iyadana topic very important ah marka la joogo cudurradan oo chronic-ga ah iyo sida ay ku yimaadaan. Marka intaasaan hadda kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.